Naasir Official Channel kala soco barnaamijyo caafimaad oo xiiso badan toddobaadkiiba hal mar. Fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada cusub. Like saar haddaad ka heshay. Share garee si aad ula wadaagto asxaabtaada. Wixii fikrad ah ama fariimo ahna noogu reeb commentiga. Maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah xanuunada faafa oo loo yaqaano dabaysha. Afka qalaadna lagu yiraahdo poliomyelitis. Waa caabuq fayrasku keeno oo keena inay tamar gabaan ama jilcaan muruqyada jidhka qaarkood oo qalala, siiba kuwa lugaha. Waxa la isugu gudbiyaa saxarada ama afka. Astaamaha ama tilmaamaha ama calaamadaha lagu garan karo dabaysha waxaa ka mid ah madax xanuun, tamar darro, iyo muruqyada qaarkood oo qalala. Muruqyada oo xanuuna waxaa lagu arki karaa inay curyaamaan qaarka hoose, siiba lugaha. Daawo gaar ah oo ay leedahay dabayshu ma jirto, laakiin waxaa la raacayaa tallaabooyinkan soo socda si loo dhimo ama loo badbaadiyo bukaanka. Sariirta oo lagu nasiyo bukaanka. Howlqabadka qofku qabto ama ka shaqeeyo 2 toddobaad ee hore waxaa laga yaabaa inay sii kordhiso howlgabnimada muruqyada oo muruqyadu ay aad u sii xanuunaan. Wax irbada ah ha siinin inta uu cusub yahay xanuunku. Qalalka inay sii kordhiyaan ayaa laga baqaa ama laga yaabaa. Xumadda la daaweeyo. Xumadda waa inaad hoos u dhigtaa. Waxaad siinaysaa aspirin 100 mg ama paracetamol 200 mg. Daryeel xanaano oo la siiyo qofka dabayshu haleesho iyo jimicsi xubnaha oo la siiyo kadib marka la aqoonsado astaamaha uu bukaanka ku yeesho cudurku. Waxaa laga hortagi karaa 1. Tallaal ama vaccination. Bukaanka oo la gooniyeeyo si loo dhimo isu gudbinta ama karantiin. Nadaafadda oo la ilaaliyo. Wacyigelin dadka la siiyo. Uu xanuunkani keeni karo waxaa ka mid ah qoorgooye, qofka oo curyaama, iyo dhibaatooyin kaga yimaada neefsashada. Dadka khataraha ugu jira waxaa ka mid ah carruurta da'doodu 5 sano ka yar tahay, dadka danyarta ah, iyo meelaha aanay nadaafadoodu wanaagsanayn, iyo dadka aan istallaalin ee aan vaccinationka.